بسم الله الرحمن الرحيم. مالين wanaagsan waa 17 bisha labaad sanadka 2025 maalintuna waa maalin isniin ah. casharkeenan aan qaadanayna maanta waa wada sheekaysi conversazione waa wada sheekaysi dhexmari doona laba qofood magacyada meesha kaga muuqda waa Ahmed iyo Cabdi laakiin sida loo dhigayo macnaha waa ka duwan tahay dhawqan isbedelaya Ahmed iyo Cabdi ayaan qaadanayna marka waxaa hadlaya Ahmed wuxuu leeyahay ciao haye come stai sidee tahay Cabdi ayaa ka jawaabaya sto bene waa fiicanahay tu adna xaaladaada ka waran Ahmed ayaa ka jawaabaya wuxuu leeyahay abbastanza bene waan iska yara fiicanahay muusan dhihin sto molto bene wuxuu leeyahay abbastanza bene quindi vuol dire che c'è qualcosa laakiin waa modo di dire inta badan waa dhacdaa abbastanza bene waan yara fiicanahay dove Amina marka Ahmed ayaa wuxuu weydiinaya Cabdi qof kale wuxuu leeyahay dove Amina aaway maanta dove Amina waxaan ka ilaawnay calaamada su'aal dove Amina marka ka jawaabaya Cabdi wuxuu leeyahay a casa guriga ayay joogtaa Ahmed ayaa hadalka qaatay come sta marka waxaa laga hadlayaa qof maqan waa qofkee waa Amina come sta xaaladeeda ka warama sidee tahay Cabdi ayaa hadlaya oggi maanta non sta bene ma fiicna xoogaa way xanuunsan tahay Ahmed ayaa ka jawaabaya wuxuu yiri mi dispiace waan ka xumahay salutala igu salaan laadaas ayaa waxay u noqonaysaa Amina salutala haddii lab uu ahaan lahaa salutalo ayay noqon lahayd marka iyadana xilli kale aan ku tagi doonaa qaybta grammarka ku sharxi doona insha Allah ta'ala Cabdi ayaa ka hadlaya ayaa markaa jawaabay wuxuu yiraahday grazie waa mahadsan tahay ci vediamo domani beri ayaan kulmeynaa markaan dul maraya conversazione dhawaqaas ka ilaali conversazione inta badan marka Englishka ay taagan tahay conversation ayaa la jiray laakiin haraaci tan marka waxay tahay conversazione dhawaqa waa wada sheekaysi Ahmed ayaa hadlay wuxuu yiraahday ciao come stai sidee tahay Cabdi ayaa ka jawaabay sto bene waa fiicana tu marka hadda eedan maxay ku kala duwan yihiin kan waa isku xire kanna waxa waa il verbo essere ficilka ahaanshaha halkaas marka waxaa ka muuqda xogaa apostrophe ama hakad ayaa dusha laga saaraya marka Ahmed ayaa hadlay oo jawaabtii su'aashii la weydiiyay ka jawaabay wuxuu yiraahday abbastanza bene waan fiicanahay dove Amina aaway Amina marka Ahmed ayaa Cabdi wuxuu weydiinayaa qof kale oo saddexaad oo Amina ah Cabdi ayaa yiraahday ayada a casa guriga ay joogtaa Ahmed wuxuu yiri marka come sta ayada Amina ka war xaaladeeda Cabdi wuxuu yiri oggi maanta non sta bene xaaladeedu ashmahan Ahmed ayaa ka jawaabay wuxuu yiri mi dispiace waan ka xumahay salutala igu salaan Cabdi ayaa yiraahday grazie waa mahadsan tahay ci vediamo domani beri ayaan kulmeynaa waa mahadsantiin intaan ku kulmi doono casharka mid lamid waxay ka taganaan baadina kulantaa saata waxaan naga xasuusin inaan naga ilaawin like share isla markaana aad la wadaagtaan asxaabtina si ay uga faa'iideystaan waa mahadsantiin